maxaad ka taqaanaa dayaxdal nuurshihii hore siduu ahaa muxuu ahaa xaguu wax ku soo bartay muqdisho xaguu kaga noolaa iyo midabkiisii hore siduu ahaa waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijkan caawi ku falaqayn doona dayaxdal nuurshe oo markii ugu dambeeyay la ogaaday inuu maqaarkiisii guud ahaan kaga soo tagay guri ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda xamarweyne dayaxdal nuurshahaas maantay waa mid noocee ah barnaamijka ayaan ku falaqayn doonaa daawadayaal aan ku bilowna daawadayaal fanaanka lagu magacaabo dayaxdal nuurshe ee ka mid ah fanaaniinta magaalada muqdisho kuwooda ugu caansan ama lagu caansan kuwa Soomaalida baan iraahday ayaa ka mid ah fanaaniinta isbedelada oo ay ku dhaceen sanadiyadii u dambeeyay gaar ahaan geyga Soomaalida asaga iyo dhowr fanaan oo kale ayaa midabkoodii lagu yaqaanay ama bulshadu ay ku ogeed isku bedelay midab nooc kale ah isla markaana isku bedelay midabka loo yaqaano dahabiga ama sidoo kale midabka cadaanka ah oo aan xigin cadaanka madowgiina ka tagay balse u eg midabka dahab xigeenka fanaaniintan uu ka mid yahay dayaxdal nuurshe ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay ka qayb qaateen qaybaha dumarku ay isku cadeeyaan iyo sidoo kale inay marsadaan waxyaalaha dumarku isku cadeeyaan sidoo kalena ay ka tageen maqaarkoodii asalka ahaa isla markaana ninka ragga ah inuu is cadeeyo ay ku tahay ceeb iyo fadeexad arrimahaas ayaan ku falaqay doonaa barnaamijkeena balse daawadayaal intaana u gudagelin halkani waa Galaangal Media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambaleelkana iska hilmaamin waad ku mahadsan tahay daawashadaada aan ku bilaabay fanaanka dayaxdal nuurshe ayaa la sheegayaa inuu ka mid yahay fanaaniinta ugu cadcad ee iscadeeyay saddexdii sano ee ugu dambeysay dhulka Soomaalida sidoo kale fanaankan ayaa si aad waxa uu sameeyay inuu ka tagay midabkiisii asalka ah isla markaana saddexdii sano ee u dambeysay fanaankani uu isbedel weyn ku yimid xagga jirkiisa iyo guud ahaan habdhiska muuqaalkiisa ayaa noqday mid dadka Soomaaliyeed ay si aad ula fajaxeen gaar ahaan dadka ka mid ah kuwa reer Muqdisho ama taageerayaashiisa ayaa inta badan ku sheegaya in fanaankani markii uu guursaday uu ku dhacay isbedel weyn isla markaana uu ku yeeshay saameyn iscadeynta dumarka maadaama xaaskiisa ay ahayd marwo ka shaqeysa meelaha dumarka lagu qurxiyo sidoo kale fanaankan ayaa waxa uu soo saaray sanadyadii u dambeeyay kareemo ay raggu marsadaan isla markaana maqaarkooda bedelaya sida uu fanaankani sheegay intoo kale fanaanka ayaa isbedel ku sameeyay xagga habdhiska tintiisa isla markaana sidoo kale waxa uu tintiisa mariyay waxyaabo kale oo kiimika ah sidoo kalena bedelay hab muuqaalkii tintiisa maadaama markii hore ay ahaayeen timihiisu kuwa gaaban sidoo kalena si aad u adag balse hadda tintiisu ay noqotay mid isbedel weyn ku yimid fanaankan oo ka mid ah kuwooda saameynta leh magaalada Muqdisho ayaa waxa uu yahay fanaan iscadeeya isla markaana maqaarkiisii iska fiiqay waxaana loo sheegay ama dad si aad uga agdhow fanaankani in guri ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda xamarweyne uu degan yahay fanaankani ay maalmin kasta halka iskugu yimaadaan tobaneeye fanaaniin ah ama sidoo kale qaar ka mid dhalinyaradiisa ama dadka asxaabtiisa halkaana ay ku caweeyaan sidoo kale lagu marsado waxyaalaha dumarku isku qurxiyaan iyadoo sidoo kale goobta ay joogaan hablo dumar ah sidoo kalena ragga u mareeya kareemada iskuguna dara qaabka isku qaska daawadana si aad ugu xirfadaysan fanaankan oo intaba uu ka muuqdo isbedel weyn waa wax qofku inuu ama cayilo ama si kale uu yimaado ama si kale uu isku bedelo bas qof midabkiisii dhammaa isbedelay ayaa waxay tahay wax cajiib ah waa fanaanka Soomaaliyeed midka ugu cad hadda wuxuuna ahaan jiray fanaaniinta Soomaaliyeed midka ugu madow uguna midab duugan haddana waa midka ugu cad haddaba fanaanka dayaxdal nuurshe ayaa waxa uu noqonayaa fanaan ka mid ah kuwa Soomaalida midkiisa ugu cad isla markaana si aad u bedelay midabkiisa wuxuuna hadda wajahayaa ayaa la leeyahay cadceeda kulul ee Soomaaliya ka jirta isla markaana wuxuu halis ugu jiraa inuu hadda dalka Soomaaliya iskaga tago maadaama uu midabkiisii bedelay sidoo kalena ay saameyn xoogan ku yeelatay qorraxda kulul ee ka socota Soomaaliya oo uu adkaysa waaye maqaarkiisa ayaa la leeyahay dayaxdal nuurshe dad si aad ugu dhow ayaa noo sheegay in fanaanku uu hadda si aad ah ula tacaalayo qorrax kulaylka ka jira Soomaaliya xilliyada kulaylka ayaa sidoo kale la sheegay inay ugu daran tahay xilliyada uu aad ugu necab yahay inuu ku noolaado magaalada Muqdisho waxa uu soo aadaa magaalada Nairobi iyo dalka Itoobiya uu ku tago safarro qarsoodi ah isla markaana halka uu ku soo qaatay waqtigiisa inta ugu badan inta ay iska bedelayso marxaladda Soomaaliya ee cimilada fanaanka ayaa hadda waxa uu yahay mid
aan ka soo bixin guriga uu ka degan yahay xaafadda Xamarweyne isla markaana waxa guud ahaan gurigiisa lagu xiray ayaa la leeyahay oo shirkadda Beeka ka gacan siiday in gurigiisa la geliyo koronto awood leh isla markaana waxyaalaha qaboojiya sida mukeefyada lagu xiray sidoo kale si uu ula tacaalo xaaladiisa maqaar ee guud ahaan saameysay jirkiisa markii uu iska bedelay midabkii uu hore u lahaa waa Dayaxdal Nuurshe. Fanaankan ayaa noqonaya midka kaliya ee ku nool magaalada Muqdisho ee bedela midabkiisa. waxaa sidoo kale jira fanaaniin badan oo ku bedelay maqaarkoodii daawo ay marsadeen maadaama fanaaniinta inta badan ay jecel yihiin inay cadaadaan ama ay si aad uga soo dhex muuqdaan dadka. sidoo kale fanaanka Dayaxdal Nuurshe ayaa hadda waxa uu yahay mid aan soo qaadin waayadii u dambeeyay heeso isla markaana ka fariisan raba fanka maadaama dadka Soomaaliyeed ay boqolkiiba boqol sheegeen inuusan hadda imaan karin masraxiyada fanka isla markaana uu hadda ku soo heeso oo kaliya guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. Dayaxdal Nuurshe ayaa hadda waxa uu wajahayaa xaalado badan oo isbiirsaday. waxaa sidoo kale ka saqiirtay gabadhiisii curada ahayd Allaha u naxariisto kana dhigo saqiir aakhire. Dayaxdal Nuurshe ayaa gabadhaasi sidoo kale waxaa la sheegay sababihii ay u dhimatay waxyaalo kiimika ah oo guriga Dayaxdal Nuurshe yaalay isla markaana ay ku neef qabatowday sida ay noo xaqiijiyeen dadka aga dhow Dayaxdal Nuurshe isla markaana saaxiibada ugu dhow. Dayaxdal Nuurshe ayaa hadda waxaa la leeyahay waxay xaaladiisu ku sugan tahay mid si aad u cakiran. waxaan Rabbi ka baryaynaa inuu Ilaahay caafimaad siiyo walaalkeen Dayaxdal Nuurshe sidoo kalena uu Ilaahay u soo celiyo caafimaadkiisii maadaama aysan fiicnayn in qof raga uu iscadeeyo isla markaana uu bedelo jirkiisa iyo midabka uu Ilaahay u sameeyay intaba. Dayax ayaa hadda waxa uu yahay caqabadaha badnaa ee magaalada Muqdisho. fanaaniinta qaar ayaa Muqdisho uga taga inay ka waayaan shacbiyad ama sidoo kale meelo ay dadka ugu dhigaan bandhigyo balse Dayaxdal Nuurshe wuxuu Muqdisho ku leeyahay taageerayaal badan isla markaana waxa uu wajahayaa xaalad caafimaad oo halis gelin karta noloshiisa. waxaan Eebba ka baryaynaa inuu Ilaahay caafimaad siiyo walaalkeen isla markaana uu jirkiisa u soo celiyo iyo caafimaadkiisii hore oo uu lahaa. waa wax xun in qofku maqaarkiisa fiiqo isla markaana waxay culimadu iyo dadka dhaqaatiirta intaba ay sheegeen qofku markuu fiiqo maqaarkiisa ama uu jirkiisa bedelo inay ku dhacaan waxyaalo loo yaqaano in qofka jirkiisa uusan u adkeysan karin cimilo kasta uu galo sida kulaylka ama qabowga ama sidoo kale wax walba oo qofkaasi haddii uu dhaawacmo ayaa la sheegay in qofkan si loo daaweeyo ay halis tahay maadaama jirkiisu haddii la tolo tago uu googo'ayo. dad badan ayaa ugu dhintay magaalada Muqdisho intaan balse dhaqaatiirtii sanadkan u dambeysay ay soo saartay hay'adda WHO ayaa waxa ay sheegtay in dadka bedelaya maqaarkooda sanadkii ay kor u dhaafaan 1.5 milyan qof. sidoo kalena waxaa la sheegay in sanadkii ay dunida ugu dhimato caafimaad darro ka soo wajahday markay dadkaasi maqaarkoodu bedeleen. dad ka badan 1 milyan oo qof ayaa la sheegay inay u dhinteen sanadkii 2018. sidoo kale tirakoobkii ayaan soo bixin sanadkan hadda dhamaaday ee 2019. Dayaxdal Nuurshe ayaa sidoo kale waxa uu hadda caqabadahaasi kula tacaalayaa dalkiisa hooyo. waxaa sidoo kale wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay sheegayaan in Dayaxdal Nuurshe xaaladiisa caafimaad looga qaadi doono dalka Turkiga haddii wax looga qaban karo halka. hay-adda WHO ee sanadkii 2018 soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahaa ee caafimaadka dunida ayaa sheegtay dalka Uganda in sanadkii la soo geliyo kumanaan kontrabaan ah ee waxyaalaha dumarku dalkaasi ay marsadaan. sidoo kale dowladda wadanka Uganda ayaa sheegtay in isbitaalada dalkaasi la dhigay ama dad xanuunsanaya sidoo kalena ay googo'een markii dadkaasi ay marsadeen waxyaalaha kiimikada ah haddana ay wajahayaan xaalad caafimaad ee dalkaasi. dowladda Uganda ayaa sidoo kale waxay ka soo saartay sharci dadka maqaarkooda fiiqa ama dadka keena daawooyinkaasi si kontrabaan ayaana loo soo geliyaa iyadoo ka soo gasho wadamada Tansaaniya iyo Kenya oo sidoo kale la sheegay inay xuduud leedahay wadamadaasi oo tekado. sidoo kale dowladda wadanka Rwanda ayaa la tacaalaysa xaaladahaasi. sidoo kale dowladda Suudaan ayaa kamid ah dowladaha waxyaalaha kiimikada ee dumarka ama dadku isku cadeeyaan marsada ay kula tacaalayso. sidoo kale dowladaha bariga Afrika ayaa hadda waxa ay wajahayaan xaalad midii ugu liidatay isla markaana ah kontrabaanka dadku isku cadeeyaan. dowladda Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda wax war ka soo saarin waxyaalaha dumarku isku cadeeyaan ama sidoo kale waxyaalaha kiimikada ee dalka ka jira. Somaliland oo kamid ah maamulada Soomaaliya
ayaa hadda ka hor ka soo saartay bayaan in dadka iscadeeya sidoo kale dadka gada waxyaalahaasi wadanka laga masaafuriyo ama laga qabto, sidoo kalena qofkii lagu arka isagoo gadaya waxyaalo dumarku isku cadeeyaan dadka laga qabto isla markaana la maxkamadeeyo. xukun adag ayay ka soo saareen maamulka Somaliland. Soomaaliya koonfurteeda ayaa ilaa iyo hadda wax war ka soo saareen. halkani waa Galaangal. haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saaro calaamada gambalelkana iska hilmaamin.